بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحلقة التاسعة وحلقة سقالات أو كتاب كينا القواعد الحسان في تجويد القرآن كمدة. حلقة waxay ka bilaabanaysaa cashirkeedan ka bilaabaynaa. weli waxaan ku jirnaa sifaat alxuruuf baan ku jirnaa. xuruufta sifaatkeeda kuwa weliba alqismu aladi laa dida laha, kuwaan didka lahayn. sifada aakhirkaan maraynaa, labada sifooyinka ugu dambeeyaan maraynaa. waxaa weeyaan sifada la yihahda atafashi, neefta oo faafta, fashaa uu faafay sooma tafashi. wa huwa tafashiga intishaaru lhawaa, neefta faafitaankeedu wey filfami afka ku dhex faafto xiina nudqi markii lagu dhawaaqayo bixarfihi, xarfi tafashi. xarafka xarfu tafashi le hal xaraf weeye. xarafkaas markii lagu dhawaaqayo oo hawada neefta afka ku dhex faaftaa la yihahdaa. walahu walitafashi, tafashigu wuxuu leeyahay xarfan waaxidu, hal xaraf buu leeyahay. wa huwa shiinu, shiin wa shiinka markii lagu dhawaaqayo neef badan ayaa afka ku dhex faafaysa. ashyaa'ahum min shari acuudu billahi min ashay. saasa haddii haddaan tafashigaas u yeelin xaraf kalo kaa noqona min ajaayu kaa noqona. acuudu billahi min ashaytaan, saas min jari kaa noqona. min sha inaad tiraahdo waay. wasumiya waa lagu magacaabay tafashiyan, xaraf oo tafashi oo neefaafid loo nisbeeyey baa lagu magacaabay liintishaari riixi, aaryada ama neefta faafitaankeeda filfami afka ku faafaysa darteed. cinda nudqi markii lagu dhawaaqahayo bishiin, shiinka markii lagu dhawaaqahayo yan aaryada afka ku faafaysa darteeda tafashi loogu magacaabay. waana loo baahayay markii la akrinay min inaad tirahdo ashyaa'ahum, ashyaacakum, nooc kasta ay tahay shiinka saas waay. kan toddobaad asaabic alistidaalatu, sifada ugu dambeyso sifaat alxuruuf oo laa dida lahaan didka lahayn waxaa oo toddobaad waxaa weeye alistidaala, dhiiri dalab. xarafka markii lagu dhawaaqo dheeraanayo. wa huwa istidaalaha imtidaadu sawti alxarfi, xarafka codkiisa oo taagmo waayo oo fido fii makhrajihi, makhrajkiisa ku dhex fido meesha laga akhrinayo. oo min awali xaafati lisaan, carabka dhinaci xaafada waa macnaa jaanib, carabka dhinaciisa laga bilaabo ilaa aakhirihi, carabka ilaa aakhiriha, aakhiri xaafati lisaan, carabka maarata xaafadiisa ama dhinaciisa ugu dambeeya. xagga gadaal laga soo bilaabo ilaa aaradda dhinaca carabka ayuu xarafki codkiisa ku faafaya ilaa meeshuu ka baxaaya. bixayثu meelo yastawcibu sawt lxarf, xarafkii codkiisa uu koobahayo. yastawcibu, yashmalu, wayajmacu, uu kulminayo, koobahayo. alxanaka, dhanxanaga, kullahu dhammaan wada koobahayo. kulli waxa dhanxanaga dhan codkiisaa buuxinayo xarafkaas. walahu walilistidaala, istidaalada waxaa u sugnaaday xarfun waaxidu, hal xaraf keliya wey. wa huwa kaas addaad wey faqad. daadka marka sifo wuxuu leeyahay sifatulistidaala la yihahdo oo maarata waa oo makhrajka ku dhex dheeraana xarafkaas daad. wala dal ad faman idura saas wey. daadka sib waa xarafka ugu makhraj weyn waay, ugu makhraj dheer waay, waana ugu makhraj adag. walada bayna qabdin wa fakin yakhruju xarfu daad baa la yihahdaa. marka hore afka isku qabo walad, kala qaad haddana codka weyne walado. qaar ba isku daya furunya inaka walado waxaasoo dhan qalad waay. goosaa isu qabo walad. ilaa xaafatu adraas baa la yihahdaa, xaafatu lisaan maca aladraas. carabka dhinaciisa goosaa dhab lagu siiyo, labada dhinac midig bidix miduu noqodaba halkaasuu way meesha daadka la akhrina. walada marka xarfu istidaal dhiirul walado
مخرجكيس كل حد يرانا وسميها والقوم مقعوي استدارة بالقوم استدارة القوم محل القوم مقعوي لاستدارة حرفه حرف كير كيس مخرجا مخرجان حرف مخرج كيس يا ديرانا عربك دينعا laga soo bilaa arada laga soo gaaro carabka dukaanka dhinaciisa kore laga soo bilaa carabka intaasu iyo xarafka daadka ayuu isku dheerina markii lagu dhawaaqayo saas weey marka halkaas waxaa nooga dhamaaday sifaatul xuruuf oo fasalkii saddexaad ahaa halkan waxaan ka galaynaa al-fasl ar-raabi' fasalka afaraad wuxuu ku saabsan yahay at-tafkhiim weynaynta xuruufaha la weynaynayo la buurinayo والترقيق حروفها markii lagu dhawaaqay la yaraynayo su'aasha marka waxay tahay ma huwa tafkhiim maxaa la yiraahdaa tafkhiimka muxuu yahay التفخيم لغة التفخيم تفخيمك هو تفخيمك تعظيم صوت الحرف حرف عدكيس او لوينيو تفخيمك هو حرف عدكيس او لبوريو لوينيو موقتاي وتعظيم صوت الحرف حرف عدكيس او لوينيو بحيث ميلو يمتلئ الفم افك وبحسمهيو عند نطق الحرف حرف مركو لو دواقهيو مخرج اهان وبحسمهيو وصفة صفاهان وبحسمهيو حرف كمركو لو دواقهيو وحويا حرف افك دنا بحسمهيو تفخيم بالإرادة فجميع حروف الاستعلاء حروف الاستعلاء لراء صامر السبعة تضبط اهد تضبط با وخص ضغط انقض انكو صامرني مفخمة تي لوينينا ولا بورنا ساس خاء ضاد غين صاد خص ضغط انقض قاف كساسو حروفات حروف هو وين كل قد مفخم ولا وينينا صاد اهدنا الصراط ضاد ولا الضو خاض اخرج ما اخرج سمجد تضبط حروف وين بلا حروف تضبط حروف مامونك مركا تفخيم اي ليه سؤال كلا waxay tahay ما هو ترقيق محل هذا ترقيق وعاتين ويرين حروفه عاتن ما سو ير لوغو دواقاي عد ير لوغو دواقاي هو ترقيقا تحنيف صوت الحرف حرف عدكيسو لا عاتيو او لا يريو بحيث مال لا يمتلئ الفم افك بان كبحسمين عند نطقه مركو لو دواقاي مخرجان وصفة صفان مركو لو دواقاي حرفك مارتن افككم مارت يعني حرفك افككم بحسمه مركو لو دواقاي افككم بحسمه افك ما بحسمها يو افكي حرف او عاتا يا كل حجره فجميع حروف الاستفال حروف الاستفال روا استعلاء حروف تدتك كو اهد واي حروف استفال بالر او الواحد والعشرون كو 20 كاهد مرققه تيلي يرينا هيوي ما عدا وحي كسو هري الراء واللام في بعض احوالهما حالدهودا قاركود انت كلا حروف استفال روا حروف استفال وحوي ما عدا حروف الاستعلاء هذا marka xuruf istifaalka 22ka waxa weeyaan hadii laamka raad laga reebo marmar la weyneynayo kulligooda waa la tarqiiqana waa la yareyna xuruf istifaal kulligeed waa la yareyna kana oo kala kaafka wa kana allah wa ka wa ko madays wa ka sasa wa kana allah ma khalaqa allah ma sasa ما هي اللام محيطة المخفخمة الوينيناي لام الوينيناي محاوي هي لام الوينيناي لام لفظ الجلالة لفظ الجلالة روا الله كلمة الله لام تكجر تمرك الأول واقعي والوينينا التي تاسو قعد عدي بعد فتحة كردو كذب عدي أو ضمة قد كذب عدي نحو إن الله يسويني إن مع النون تكرر جنب كوريس إن الله ها لام كلوين لك ها ثوينين إن الله ما إن الله ها ساسي مرك قد كورين وطن واتقوا الله
وأما إذا تقدمها هدو كهر مروها لام تصل لفظ الجلالة لرادة الله هذا لام تهذا لفظ الجلالة لو يقناي دو كهر مرو كسر لك هدو كهر مرو نحو بسم الله أوك فهي لام لفظ الجلالة مرققة ولا يرينا بسم الله هذه هل كان نقطة يا كجرتو هدو كهر واحد عادين معلنا يا وحال رويل وتجويد كبره أعودك بسنك أميرنا مركا يركا وحنا واسو غصا مركا دنبا سورة مانتنا بسم الله الله هذي يري أعوذ بالله من الشيطان ضاد ويني سورة مركا دنبا وحلو يا إلهي يري بوري شيطان كان ويني وكدي وحور ما عقيدة إديس إلهي ما يرينا إلهي وين هاي شيطان هو يريها ما أساسكم موضوع لفظ كان كوضا قراءة كوضا مركا وحويا وأساس أعوذ بالله ولا يرينا من الشيطان ضاد وين هاي الفصل الخامس فصل كشانات أحكام الراء راء أحكام تهذب في التفخيم حق وينينتا والترقيق يرينتا راء هل كان شيكين قرمان راء ذا لوينيا قرمان لا يريا كل واقتان كذا سؤال شكوات كم أحكام الراء الراء أحكام تهذب وإمس للراء جوابته وحوين للراء الراء ذا 3 أحكام الراء ذا 6 حكم بيلا ذا التفخيم مروى لوينينا والترقيق مرنوى لا يرينا وجواز الوجهين لبض مرنا لبض وقبنانتا متى تفخم الراء راء قرمال وينينا تفخم الراء والوينينا في 8 مواضع 6 ميلود مركيتهاي والوينينا وذلك كاكو إذا كانت مركيتهاي مفتوحة تيل كردغي نحو ربنا وكلا الراء وكردغن يسمى ويني بربكم وكلا بربك ربنا مركا إذا وهريسوي بربكم مركا دحدا كجرتو ليس البر مركا قدام بيسوي كصحاحاته أولك أوسطك آخرك كجرتي الراء مربا دي كردغن تهاي ووينينيسا ربنا الرحمن الراء ووينيني إذا مركا لباد إذا كانت مركا تهاي مضمومة تيل لقضي نحو رزقوا أكلا لا يبصرون هو البر مربا دي قدن تهي ووين تهي مركا سدحاد ووينيني إذا كانت مركا تهي ساكنة تيل ريبا سكونا ريبتنو أصلية أصلية وقبلها قبل الراء ذكرنا فتح كردو إياهي والوينينا نحو مريم ومريم وحركة راء والريبنتا كرديغا كوري والريبتن كذا أصلي يسخر أكلا لا يسخر قوم والراء والريبنتا سكون كذا هو أصل لاجل وقف معها وحكى للوينين إذا كانت مركيتها ساكنة تنتير ريبا وقبلها هرت يدنا الضم والريبن تنقض بكوري والوينين نحو قرآن فمن يكفر قر راد والريبن تنقض كوري والوينين إذا كانت مركيتها ساكنة تنتير ريبا وقبلها هرت يدنا كسرة أيتهي كسرة أيتهي كسرة وصدق أيتهي أصلية أصلة ومتصلة لحررت بها أيضا لحررت وبعدها قداش أيضا حرف استعلاء وياهي حرف استعلاء سو مفتوح لكردوي في كلمة كلمة الراء هل كلمة سكولة جيران مركز نوا لوينينا نحو قرطاس وكلا قرطاس فرقة كل فرقة وإرصاد مرصاد لبل مرص شنطة ساب كجرت بقران كبا شنطة ساب كجرت وكل ووينين سا وعكا لوينين إذا كانت مركيتها ساكنة تنتير ريبا سكونا ريبتن أصليا ريبتن أصليا عارضهن بعد كسر أصلين هو صدق أصلا أي دبر عدي ومنفصل كجون عنها الراض كجون مركز نوى لوينين نحو الذي ارتضى دينهم الذي راض الريبنتاي هو صدق أصليا أيا كوري والذي ذلك هو صدق هذوي والوينين دينهم الذي ارتضى وعلم إذا كانت مركة تضوات إذا كانت مركة ساكنة تنتير ريبان وسكونا ريبتين أي ريبان تهي أصليا بعد كسر هو صدق دمنؤي هي أو عارض وصدر منفصل كنقون مركز نوا لوينينا نحو إن ارتبتم إن ريبان تهي
hoos dhiga ka horeeyo waa ra'da hoos dhigaasna waa hoos dhig oo caarid ah wey asal in buu ahaayo liajli saakinayn labada reebtan kulmay darteed yaa nuunta loo hoos dhigay in irtabtum saas wey marka sideedaad ugu dambeys idaa kaanad markay tahay saakinatan tii reeban sukuunan reebtin oo asliyan asli ah bacda kasrin hoos dhig kadib caaridin oo soo darisay oo mutasilin la xiriira hoos dhiga iyo ra'dana waa xiriira markaasna waa la weyneynaa naxو irjicii ilaa rabbik irjicii ilaa rabbik saas wey irjicii saasaa la dhahaya sideedaas jeer ayaa ra'da dhawaqeeda la weyneynaya mataa turaqaqu ra'da goormaa la yarayn jawaabtu waxaa weye turaqaqu ra'da waa la yarayn fii 5 mawaadica 5 meeloodna ra'da dhawaqeeda waa la yarayn wadalika ka idaa kaanad markay tahay maksuuratan ti hoos dhiga ra hoos dhigan oo dhan waa yartahay maana dhawaq yar ay leedahay naxو risqan oo kale risqan iyo marii'an iyo laylat lqadri khayru qadri marba day hoos dhigan tahay waa yartahay idaa kaanad markay tahay saakinatan tii reeban sukuunan reebtin oo asliyan ah waqablahana kasratun asliyatun kasra asli ay tahay walaysa bacdahana xarfu isticlaa aan ahayn fi kalimata isla kalimada markaasna waa la yarayna naxو fircawn oo kale ra'da waa reeban tahay kasra asli ayaa maarata ka horeysa xarf ka dambeeyana xarfu isticla maaha fircawna caynka xarfu isticla maaha wa fircawna dil awtaad iyo idaa kaanad markay tahay marka saddexaad markay tahay saakinatan tii reeban liajli waqfi reebtin dartiisana loo reebay wa qablahaana yaa-un ay tahay ya-daasoo madiyatun ya-da yaa-ulmadid xurufulmadka ka mid ah waa yaa-ulmadid waa ya-da reeban hoos dhig ka horeeya waay naxو min bashiir bashiir ayaa ku istaagta waa yareynaysa bashiir qadiir basiir nadiir kuwaasoo dhan kulli waa la yarayna ra'da sababta waxaa weye waa ra'da liajli waqf baa loo reebay ya-na waa ka horeysa ya yaa-ulmadid madkana siisa xuruftiisa waa jalcan tahay aw liinatan ama haddii ay ka horeyso yaa-uliina ya-da oo xarfuliinka aan soo sheegnay ah yaa reebanoo kordhig ka horeeyo naxو laa dayr waa yareynaysaa laa dayr iyo idaa kaanad markay tahay saakinatan tii reeban ra'da hadday reeban tahay liajli waqafka dartiisa loo reebay bacda kasri hoos dhigna oo daba dhacday naxو liyundir ra'd hadii lagu istaago liyundir ra'di waa reebtankeeda waa liajli waqf u reebtay hoos dhigna waa ka horeeya muntashir munhamir shantaas jeerna ra'da waa la yareynaa su-aasha kale waxaa weya mataa yajuusu goormo alwajhaan labadu waj goormay bannaan yihiin min atafkhiimi weyneynti watarqiiqi yareynta fi raad ra'da goormaa la yareyn karaa lana weyneyn karaa mar labada halkii ra' ay ku bannaan tahay labada meelood in loo isticmaalo yajuusu lwajhaani labada wajba oo weyneynta iyo yareyntaba fii 5 kalimaatin 5 kalimo oo qur-aanka ku jirta in bay ku bannaan tahay alأulى kalimada koowaad firqin kulu firqin oo fi shucaraa faqad suuratu shucara ku jirta firqin waa ka ra'da waa reeban tahay oo waxaa ka hore hoos dhig in la yareeyaa la rabay laakiin qaaf harfu isticlaa ka dambey marka waa yareyn karta kulu firqin haddii harfu isticlaha mar haddii harfu isticla ka dambey waa weyneyn karta dhe waa weyneyn karta kulu firqin laakiin harfu isticla asagana waa hoos dhigan yahay hoos dhigi ba hoos u dhigaaya waa yareynaysa marka labadaba ku banaanta firqin iyo firqin labadaba suuratu shucaraa fakana kulu firqin kadawdi lcadiim faqad bes alkalimatu tan labaad kalimatu qitrin oo bisaba suuratu saba ku jirta faqad keliya qitr aydan qitr iyo qitr labadaba ra'da maaha waxaa da'da maaha da'di qaafka waa weyn yihiin ra'da waayo waxa marna la yareynayo marna la weyneynayo qitr inaad tiraahdo iyo qitr aad tiraahdo kelimada saddexaad waxay kalimatu nudur asitati oo 6 ah kullihaa dhammaantood fi lqamar fi suurati alqamar ay ku wada jira kayfa kaana cadaabii wa nudur oo kusoo noqonaysa 6 jeer nudur marka nudur waa ugu istaagi kartaa nudur oo yaraana waa ugu istaagi kartaa
كلمة أفراد كلمة يسر أو في الفجر كجرت والليل إذا يسر إذا يسر وينين إيران وكوكو بنانتاي لو غيره كلمة أسر أيضا سواء قرنت بالفاء فعل إلى الحريرية سدا فأسر أو كلا فأسر هذا أساس لو ريبو مركز ريبان تاي ودي وصدقن تاي عادي فأسر بعبا مركز تاي عادي وصدق ويرتاي لكن مركز الريبو هاي فأسر فأسر أو بأن مركز أن لا لحريريو أن أسر يران وينان شنتاس كلمة way ku banaan tahay quraanka marka akhrinayso ina marna yareyso marna weyneyso intaasaan ku joojinaynaa hada wabillahi tawfiiq wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab